odayaal sida intiina badan aad la socoteenba kiiskii ciyaaryahanka lagu magacaabo Anthony wuu sii ballaartay waxaan haatan soo fargeliyay booliiska magaalada Manchester kooxda Manchester United war-saxaafadeed ee shalay soo saartay waxay ku sheegtay in si dhow ula socoto xaaladan adag waxayna ku sheegtay xaalad serious ah waxayna xaaladan saxaafadda dalka Ingiriiska ku tilmaameen mid ka culus kiiskii ciyaaryahanka lagu magacaabo Mason Greenwood taageerayaasha kooxda Manchester oo horey ugu qasbay kooxda inaanu kooxda u dheelin Greenwood ayaa haatan soo jeedinaya in Anthony ciyaaraha laga mamnuuco sidoo kale Manchester waxa email iyo sidoo kale qoraal iyo kulamo la qaatay ururka ciyaartooyda kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ee loo yaqaan BFA Professional Football Association waa urur ay ku midaysan yihiin ciyaartooyda waxay leeyihiin in kiiskan baaritaanada uu ku socdo ciyaaryahan Anthony kooxda ha laga mamnuuco booliiska magaalada Manchester ayaa haatan dab ku sii shiday arrintan laakiin Manchester waxay leedahay si dhow ayaa ula soconaa xaaladan kadib markii aan aragnay cadeemaha ay soo bandhigtay dhibanaha waxa u qaadanaynaa xaalad khatar ah oo serious ah marka hadalkaasi ku nuuxsano Manchester maadaama ay leedahay marka aan aragnay cadeemaha dhibanaha waxaan u qaadanaynaa xaalad khatar ah micnaheedu waxay tahay cadeemihii la soo bandhigay ayaa muujinaya muuqaalo sawiro fariimo WhatsApp la isdhaafsaday daqaro ka muuqda gabadha lagu magacaabo Gabriela Gavalin arrintan waxay dhacday laba jeer 2022kii iyo 2022kii oo laba jeer kulan Man City labiha ay kaga badiyeen sanadkii la soo dhaafay marka waxa leeyahay Anthony gabadhan uu u hanjabay inuu dili doono iyadoo xaamilo ah sidoo kalena daqaro madaxa u geystay sidoo kale xabadka uu ka garaacay dhaawac badan jira gabadha marka maxkamaddu waxay ka furatay dalka Brazil magaalada Rio de Janeiro laakiin maanta oo khamiisa booliiska magaalada Manchester waxay leeyihiin maadaama dhacdadan ay ka dhacday magaalada Manchester hotel ku yaala shaqo kuma laha Brazil annaga baaranayna marka Manchester waxay sugaysaa oo kaliya in dacwad lagu soo oogo ninkan mar haddii dacwad lagu soo oogana waa Vinito sheekada way isku dhamaatay Anthony kubadda cagta ma ciyaari doono inta kiiskan uu dhinac u dhici doono maalinta sabtida ayaa laga yaabaa booliiska marka baaritaanada hordhac ay sameeyaan in Anthony ay soo qabtaan ayna u jiraan waaran ay ku soo qabanayaan kooxda Manchesterna kadib ay go'aan gaari doontaa listiga inay ka saarto inta kiiskan uu dhamaan doono waa xidigii labaad ee Manchester haddii ay ku cadaato fadeexadan inkastoo Anthony uu iska fogeeyay eedeymaha uu sheegay in laga been abuuranayo 23 jir qaranka dalka Brazil laga saaray isbuucan kulamada Bolivia iyo Peru haddii kooxda Manchester listigiisa laga sii saarana waa xaalad kale oo aad u adag